بسم الله الرحمن الرحيم كنت وعن وناكسن أخيارت قيمها إيه شرفت له isku soo noqod wanaagsan waxa rajeenayna inaa caafimaad qabteen aniga waan caafimaad qabnaa alxamdulillah waxa lagu jiraa bishii mawlid waxa dhalatay bishii mawlid aan ku salina xabiibkeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam xuskiisana aan badino maanta xarana aan ka hadalno qiso aad u murugo badan oo xanuun badan ka dhacday wadanka Masar magaalo kamid ah ayay ka dhacday qisadaas arabna aan ka hadalno ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta qisadu waxay ku bilaabanaysaa nin la yiraahdo Maxamed Mansuur ayaa waxa uu guursaday islaan loo yaqaan Sharabaad markii uu guursaday Sharabaad waxay u dhashay 3 wiil iyo 4 gabar ayay u dhashay muddo markii saas ugu noolaayeen ay noloshaas baraara ah ay ku jireen ayaa waxa dhintay Maxamed Mansuur aabihiis Mansuur markuu dhintay Maxamed waxa la dhashay nin kale la dhashay adigana iska hanti leh ayaa la dhashay ninkaas kale wuxuu dhalay hal wiil hooyadoodna way joogtaa sida caadiga ah oo sida sharciga ah ninka haduu aabihiis dhinto wiilashiisa dhaxal yeelan maayaan waa sida sharciga ah muddo markii sidaas ay ahaayeen odaygii uu dhintay oo la yiri dhaxalka la qaybsado odaygu wuxuu ka tagay guri iyo beer ayuu ka tagay odaygu Maxamed Mansuur aabihiis ahaa guriga iyo beertii markuu ka tagay yarka kale la dhashayna waa iska ganacsaday ganacsigaas waxyaabaha isku mashquulsan waana iska safra oo wadamada Carabta qaliijka iyo malaas safar u aad ninkii markii uu soo noqday waxa la yiri dhaxalka la qaybsado labadan wiil hooyadood waa joogtaa oo Mansuurkii uu qabay labadan wiil Maxamed Mansuur iyo yarkan kaleeto dhaxalka la qaybsadaa la yiri dhaxalka waxa lagu qiimeeyay in la yiraahdo maamada hala siiyo oo Mansuur ka dhintay oo labadan wiil dhashay guri hala siiyo ninkan kaleeto iyo Maxamed Mansuurne ha qaybsadaan hal guri aan qaybsano sidaas lagu heshiiyay islaantii uu qabo Maxamed Mansuur loo yaqaan Sharabaad kuma qanacsana hay tiri aniga waxa rabnaa hal guri inaan qaadano aniga iyo ninkeena iyo saddexdeena caruur iyo afarteen gabdhood todobaas caruur ah inaan hal guri degno oo aan qaadano midii waxay isqabtay marka ayadii isqabteen waxa la yiri adiga gurigan waxba kuma lihid waa lagu qabaa ninkan uu qabo ninkan dhaxalkiisa leedahay wixii uu qaatay leedahay meel joog ala yiri kumaysan qancin marka ilaa waa neeg sheedaan wado kumaysan qancin waxay sameysay oo ay ku fikirtay sidii ku heli lahayd gurigan dhaxalka asii ku heli lahayd maalin maalmaha kamid ah ayaa waxa baxay Maxamed Mansuur walaalkiis oo ninka ganacsada ahaa safar iskaga baxay oo wuxuu iska aad wadamada qaliijka iyo meelahaas u baxay hal wiil oo dhalay hal wiil ka tagay marka hal wiil markuu ka tagay ayada wiilasheeda waxay ku boorisaa oo wiilasheeda markasta ay dhahdaan dhaxalkan waa leeyihiin dhaxalkan qaata waa adeerkii uu idin gaada adeerkii iyo waxa iska horkeenay wiilashii iska horkeenaysa almuhim maalin maalmaha kamid ah wiilkii oo yarka ahaa oo loo yaqaan Cabdulcadiim uu dhalay wiilashan badan adeerkood macnaha odayga taajirka ah oo ganacsadaha ah midka uu dhalay wiilka uu dhalay oo meel iskaga ciyaaray ayadii wiilkeedii Xuseen ayaa soo baxay mid Xuseen la dhahaa ku jiro wiilasha way soo baxaan waxay yiraahdeen hay kaalay xafadan aadina waa soo ciyaarayna aad isaasay ku soo xirigelin wiilkii waa la soo waday xalkan guriga wiilkii guri markuu soo galay alaab oo ay ku ciyaartay oo ku ciyaaray iyo waxyaabahaas loo dhidiyay wiilkii markii loo dhidiyay leer alaabtan ku ciyaar Sharabaad wuxuu ku fikirtay cunugan inay disho wiilashan waxa dhalay adeerkood wiilkan waxa dhalay adeerkood marka inta kale tama joogan waxay joog wiilkeedii Xuseen iyo habarta wiilkii soo waday qol dambi geesay dharkii ka siibta marka dharkii markii ka siibtay cunugii ciiga ku qabatay way qiijisay dhab waa garaacda waa disha way qiijisay ay cunugii way qiijinaysa afka uga qabanaysa cunugii waa mir daboolmay hal ultimo waa suuxa cunugii dhulka ku dhacay cunugii dhulka markuu ku dhacay way soo qabatay dharkii ka siibtay dharkii waxay ku daadisay dhiig xaq ku yimid waay cunugii qabatay sakiin qaadatay cunugii jajartay xaasinimo heerka garta bal fiiraada sakiin iyo midii inay qabsatay cunugii jijad
jarjartay dhiiggiisii waxay ku daadisay maryihii markay ku daadisay cunugii caadi usii dishay waa sii bareysay mididii qaadatay haba gabadii ka goysay markii dambe waxay ku fikirtay beerkiisa inay la soo baxdo xaasinimo heerkay ka gaartay beerkii la soo baxday beerkii markii la soo baxday way fikireen ayadii wiilkeeda si meedkan lagu qariyaa meedkan cunuga yar ka dhintay sidee lagu qariyaa waxay ku fikirtay ilaa waa naag shaydaan la talinayee maryahan inay qaado oo ay geyso magaalada dhankeeda midig oo geeska ah inay maryahan dhigto meedkaana inay mara kale inay ku duuduubto ee dhigto magaalada dhanka kale ee bidixda ah ay geyso macnaha meesha qoraxda u dhacday iyo meesha qoraxda ka soo baxday inay kala geyso cunugii waa la waayay adiga sidii sameeyeen way kala tuureen odagii yimid wiilkii la waayay waa la baabaaray meediyaha la geliyay cunugii la raadiyay magaalada geeskeeda waxa laga helay dhanka midigta ah maryihii oo dhiig leh ayaa waxa laga helay magaalada geeskeeda booliska markii meesha ay ka heleen maryihii dhiig lahaa waxay isdhaheen meedka meelahan kama dheero marka meedka la raadiyo meedka la baadigo waa la waayay sharabaadkii marka ayada guriga joogtaa sharabaad iyo cunugeeda guriga joogaan marka ayadoo guriga joogo waxaa u timid islaan diriska ah waa ilaahay wuxuu watay islaanta diriska u soo gashay iyagana sharabaade waa taqaanaad islaamka waa iswarasta xaaladda ka warama fiican tahay islaanta dirisku waxaa aragtay dhiig meesha ku daadaatay oo dhiig wixii meel yaali aragtay shaki badan meesha ka sii qaaday marka waana la ogaa mar uun cunuga guriga inuu sii galaa waa la ogaa almuhim sharabaadii marka waxay tiri intasan habartu u imaanay wiilkii waxay mar ku tiri sakiimankan iyo waxaan qaad iyo midyahan naga tuuriyay jana lagu raacane farayna sina soo gelin wiilku waa baxay wuxuu midyihii iyo wixii uu qaaday asoo sii wada islaanta diriska wiilkeedii ayay israaceen waa lis wareystay marka war heeda waxaa maxaa waa wiilkii warkii uga dhacdhacay adiga waxba u sheegay habartiina gurigeeda joogtaa islaanta kale taa warkii iyo wixii iyo way shakaysa marka shaki badan meesha ka qaadeen booliska baaritaan oo bilaabo baaritaan kusoo u wada islaantana inay farihii soo galeen islaanta markii farihii soo galeen waa la baaray baaritaankii ilaahay makrigooda iyo dhagartooda uu soo saaray maxkamada la saaray habartii maxkamada la saaray cunugeerku maxkamada la saaray labadoodii waa la xukumay xabsi hadirtaan ku jiraan waa xukun sugayaal waxaana lagu xukumin dil toogashaa in la dilo laakiin cunugan yarka weli waxaa la yidhi asiga waa yaryahay lama dili karo laakiin qoftaan xadgudubka iyo xasadka iyo dhagarta iyo waxyaabahaas oo dhan wallaahi waa halis ilaahina mootiyo qisadayna maanta intaas ku egtaa wabilaa tawfiiq